maanta waxaan joognaa Ankara saa u jeedin waxaan maanta soo booqanay restaurantigan Adnina dharg iyo dhadhan runtii waxaan tijaabin doonaa cuntadeeda oo aad u macaan oo dad fara badan ay noo soo sheegeen marka Ankara ka nimid marka imaano waxa liir meeshaas waa inaad ka war doontaan marka hadda waxaan joognaa Adnina kulley gudaha u sii gali doonaa waad arki doontaan dhadhanka cuntadeeda ayaa aad la socda maadaama uu iska jiro corona iska jiro ee magaalada ay kala xiran tahay baakada cuntada lagu qaadaa gudaha xasan la joogay maanta waxaan soo booqanay maqaayadda Nina restaurant waxaa iska leh gabdho Soomaaliyeed ayayana wax kariye chefka ah waxaa lagu siinayaa cunto dhadhan leh aad u macaan aa ka dhargi doonto waxay la sheegay dadaad timaadin Nina noo balana waliba waxaan ku sii darayaa cuntada markaas aan ugu diyaarinayaa wax qiyaale oo kuleena iyo waxaas ma jiraan waa cunto test leh oo dhadhan leh markaad Ankara Istanbul ka soo bixisay ama markaad Yurub ka timaadid marka han ogaan Adnina waa cunto la isku sheego waa oo halkaas iga dhamaysan gudaha tagaynaa isla wadaga halka la joogo waa ku salaam saxiib soo dhawaada maartay anigana waxaan leeyahay maartay wadanka maartay waa bartaan ku ahay waxaan soo booqday walaashay maartay Adnina restaurant maartay cafeteria restaurant aan soo booqday maanta waxaan ka kuleenahay sharaf waxaan leenahay Soomaalida degan Ankara Turkiga maartay Istanbul dhan kasta iyo dunida daafaheedaba soo dhawaada maqaayad waa maqaayadiini ku soo yaaca yaan loo kala harin qof walba Soomaaliya maqaayadan way furan tahay soo dhawaada ما شاء الله هذه أدوات نوع كستاء أنت ودك هذا وحيستي أيضا نوع كستاء ما تهلا يساء كسو يعن أصحابي مع السلامة وما سنتين ونرسع عند الطاق ما أطلع قبل وصلنا يلا أمر يقول لي بنو كنا نوضي ونوضي طبعا كما كذا شرفت نص وثان ما شاء الله هذه أنا ومؤسسة سلمان سعيد وحبنا وكذا وتيجي عاوة وفرحنا هنا لقمة المردنا وقت قال غالي على صوت وكذا ما تعجبنا thank you very هنا معالي مهر سمري ما شاء الله waxaan joognaa Adnina restaurant أظن درجة حطوا معانا dhadhan iyo dareen ما شاء الله 8 سباكلا كل جسنا عمتو wala soo sheegay alaabtan يلبن جيرو ووال ما شاء الله كثير ما شاء الله ولا يفوق بعد الصحافة اللي يصير سكري ولا عليه وقت نص ومرات مع ذلك ما شاء الله تبارك الله جمع استقبال في أنكارا hadda waxaan dhex joognaa Adnina restaurant waliba qaybtan annaga rabno marti qaaday inuu COVID-19 jiro meeshan cunto dhadhan la taal ninkii isdilaaya soo fariisto alaabtan aan ku joogno صويا أصحابي صويا safka waa la iga horeeya baafi Salmaan ay iga horeeyo شو بقول علينا أنت يوتيوبين وجدين أدنينا صوب وأنا مانتا رستورانتي أما مقايد قلت يا عليك عملت تستي أما ده آد ونعكسن أي لا لاي وحنا فوتي يلمو غنا يا عملت كلا جديسن سبوسكي هيلبكي خضارتي وحيالك كلا جديسن عبيتانكي نوعيس بردون قفل بالسفر أو مقالة سفر فيه مالو cunto macquula dhadhan leh qiimo ku raali geliya ay u doonto marka waxaan dhihi karnaa waa wax dhameystiran oo dhan walba ka dhameystiran cuntada dhadhankeeda tastigeeda xitaa isbaaska shidniga ayaa halkaas oo jeedid waxaan yaala saladkii iyo nooc walba si laba qayb loo sameeyay sabuuska halka yaala hilibka nooc walba loo dubay cabitaan dhameystiran oo runta aad dhigtid waxa kaga gamba kartaa wax walba kaga gamba kartaa tastiga briiska marka aad dhadhamisid caadi ma
سلمان ما هذا كمشروع وحال إيش شيء سمبوسة ما دام رمضان دوده إن ذاك الطلبات اسمه سنكر ولص ديارنا واو يا jikin xima soo gal hadda ya وجيكن فيه salmaan oo jikinkiisa ku dhagan جيكن عادي ما بعد عشان وديار قرو كجرو انا اللي قلت hay marka تستي عادي ما تستي وتستي معان واعطيك تنتي ماشي لو قلت لك لو سمبوس xilliyada ramadaanka oo kale qofka soo gurigiisa joogo soo dalban kara ma garad marka 150 waxa dadka Soomaaliyeed oo runtii qurbaha ka yimid ayaa wadanka yimid business-kan ka sameeyeen wiilal Soomaaliyeedna waxay u sameeyeen shaqo abuur u sameeyeen marka waxa loo baahan yahay sidaan afka loo baahan yahay marka in la iska daayo dadka ajnabi shaqaaleysiinaya fursad inay siiyaan dhalinyarada Soomaali markaas inay fursad u siiyo marka cabitaanka waa meesha ugu dambeeya waa cuntada waa heer sare halkan waa kaas sabshana ما فوق كجرا جيم تايجر ما jumadan luuqa ah inkastoo maqaayadda official ahayn laakiin waxay alaab waa leewa سلمان هاي اي حالتك قور على الله هذا اوكي waa ku haystaa soo maamad هذه adniina maxaa leedahay أني وحنا الله ران كراك سوي عام داينو كعلي هدنا كعلة بكاس لنا يا المشان waa tahay كيست مالك لا هذه مده aad iyo aad عدنان عدنان xaalada hore xaj maanta waxaan ka cuntaynaa maqaayadda adniina waxaa iska leh gabdho Soomaaliyeed oo qurbaha ka yimid waxay ugu talagaleen Soomaalida halkan degan inay u sameeyaan cunto dhadhan leh macaan maanta anaga provenance cuntada arkaas oo macaan tahay hilib sida loo soo fiiriyaa sambuuskii waa kan qudaartii waxaan leenahay adniina lagu soo dhawaado cunto aad dhadhan leh macaan ku dhargiis gacan maahan chef gabadha chefka gabdhaha Soomaalida cunto aan jiyay maahan wax kale ma garanin waxa la kulleynaa ma leedahay waxa la kulleynaa ma waa hadda la duwaa waxna diyaariyay عباس البوسان أنا بلعب بسم الله. أنا كفتريدا يقول أنا علق بلوكا يا حلو معن سرت وانا دنك يا ها والله صرت وأنا كمان ناني هاو شت لقي ما شاء الله تبارك الله من دقي على كل العين يس واش انت سوقلي شو مع هذا وش ما شاء الله مع كنور بدني الشوب ده علمتي وانا kan karsid kaas برقه كويا لما انا جاني كريس وحفلة يا لو ما كلا هارين أدنينا بس دي صرت في أدنينا وشو هذا سبيشال ريت تركيا أنكر هذا تمادان adnina restaurant ما شاء maanta الله xarag waa ka jirnay caadi ma waxaan xarag jaris ma soo dhaweyn waay haddaad timaadid saan isa ka fiican aan ugu soo dhaweynaa aad iyo aad cunto dhadhan lee helaysaa sirta waa dhadhanka adnina way mawaadaa sirta بسم الله الرحمن الرحيم خير أنكرة وشو دبادة مقايد ديني adnina Adnina restaurant. xarag laga jiray yes wuu maqaayad shar caalami wow بسم الله soo dhawaada gacmo furan si qurux badan oo jirta ya تعطل اسكفيري معاك اسكفيري يا بو wow inta noo saar ما شاء الله thank you hadda la qaadanayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أم سنتين سومالي ودن ماشي أرجوكتان مركو روحا مهد أسقناتي الله سبحانه وتعالى ما أنت وحاس الشرف النوسو قاري تدنقو قالية أنا مهد قار وعلي دونا وحسن كبيركي حسن سلمان شي مصطفى شينو
maanta looma kala har maqaayadda maanta official u furan tahay aada u mahadsantihiin meel walba aad joogtiin Soomaali maqaayadda idinka in furan tahay waxaad ka heli doontaan cunno kala duwan wax walba cabitaan everything wax walba idin kulan ka qanci doona raashinka Hollandayska Soomaalida Tanzaniyaanka iyo qaar kale oo badan insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كم حال هذا رمضان كم حال له أوردرك wherever you are حلوة وحول بأوردرك إلا بقول كنت قفوضة أوردر أسفارة ده جالية أنكرة ميل والبقى جوكتان ديار عنا هاي وحي أو وحول بقى أو عاوتان أو أدوبها تان عدين كيف ترى مقايد كلية معها حتى وحي أتاجنتها جارتي أهاني أتاجنتها هاي بسوا دواد إن شاء الله whatever happen وإن لو قربت تاجنا دول لا وهذا السلام عليكم. waxaad daawateen waa Adnina Restaurant and Cafe ee magaalada Ankara runtii maqaayad aan dhihi karno cuntadeedii aad ay noo cajib gelisay hilibkeeda bariiskeeda qudaarteeda bisbaaskeeda shidnigeeda ma sha Allah xalwadeeda xalwa lagu sameeynaya xitaa caadi ma aha marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay ee Ankara ku nool hamoogaanina Adnina Restaurant and Cafe sambuski maalmaha ciida aan dhahay ramadaanka oo kale waxaad ka helaysaa sambus dalabkiina ayaad gurigaada lagu keeni doonaa musafsheen ilaa hadartan wuxuu cunaya xanjo cunaya haye barada waa dilinahay waa la soo dharjiyay maanta hadal male soomaha hilib dhihin sambus dhihin horta dhadhankii aha haye meesha waa haysaa Adnina sheeg aan kala aniga cabitaanka oo saasa ma igu raacday intuu kala dhamaa maskaxdu kala dhamaa caadi ma ii soo baxay markaa cabe soomaha waatahay agaari marka Adnina ayaa noo balana hadda kadib iyo magaalada Ankara kulli waxaan rajeynaynaa Istanbul in la geeyo doono inta ka horeysa waa Salmaan oo Ankara idin kala soo hadlayo oo idin kaga tagay sidaas nabadgelyo